محمد صلاح ديفيد اوريتشي محمد صلاح وسوي يرقبله ليفربول جول كمان عيارته عيار يا ربي سونا يا وشو بكون كبدا هاي ايفرتون ريس الجول توفياس نيو عيار يا ربي سونا يا الجول قروح بدن وشوي كول ايفرتون ما نسي يدري الجول. As much relief as joy. It has felt like an eternity. But finally Pickford is pierced and Liverpool lead. Well, I think we saw that the positions of Alexander-Arnold and Robertson were very high in this second half, and Liverpool are prepared to take the risk. And once that did find its way to Robertson, you had to kind of check for a moment, because you think it's the little guy, it's the little left back who's managed to get his head to it. But that's the kind of commitment. عاونات كتير حدقة فراعين تيرير مسر محمد صلاح وعسى قروح بدن أو مدح كل ما يصير حدقة سكوتلاند أندري روبرتسون مارسا دربنا وجه كلايو يا شيء عسان كيا هوجانك وقبتي بلوغا يا هوجانك لقاها مرول بعسان كيا كنا نسيب راسم بلوغا ليفربول وقدام بين لحدين لبض دقيقة يا هوجانك وقبتي عيارتي وين هذا مارسا دربي ايفرتون laga adkaadana Serbia ayuu sii dhici doonta Liverpool adkaatana wuxuu sii ruqaansan doonta ku guuleysiga horyaalka iyo dagaalanka dhankiyo hogaanka horyaalka Premier League dalka England waji kale ay ciyaartii yeelatay mar kale xiisad kale Liverpool iyo Everton gentleman balkawran goolka laga dhaliyay naniyo sida hore ku sheegaba Liverpool way keeni kartaa hal gool ayaan hore ku dhahay sanadka ka hor sidii aan sheegnay oo aan saadalinay way dhacday oo hal gool ay la timid marka sida Everton u jeedno iyo Liverpool laga farxay Everton walaga ciyaartoy wanaagsan hada waliba tababaraha club wuxuu sameeyay bedel macquul markaas ma la ahayn laakiin hada macquul ka dhiga ciyaarta David Origi hada kubadda ka soo shaqeeyay marka dambe wuxuu baas Mohamed Salah markaas ku awii goolkaas laakiin qayb weyn oo kala marka waa ciyaar runtii aad u adag waxaan ku sugnaa 90 daqiiqo forward by Coleman, taken up by Rondon, jousting with Matip. Robertson lofted up towards Salah, seen by Keane. Yeah, and the chant is now Rafael Benitez from the Liverpool fans, which is a two-bladed sword in the hearts of Evertonians, based on their love for him as the leader of this club and their noting of his part in this season for Everton. Yeah, and big gaps appearing now in the Everton end upon that second goal being scored by this fella. And the latest Beatles hit goes something along the lines of "I'm so glad that Jurgen is a red." That's the one they're singing now. daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta iyo saaxiibayaal Marseille derby casaanka ayaa markaa la go'aan ku haya ciyaartan sida muuqanaysa casaanka ayaa ka adkaa kara buluuga Everton markaa waa la macsalaamay doona laba gool ayaa lagu soo daari doona caawa. This has not been a stroll. Well, he had a big problem to solve at half-time, Jurgen Klopp. I think probably more worried than usual. But essentially his answer has been to commit more to attack, Jurgen Klopp, and that's his way. I mean, labada kooxood Everton laba gool ayaa lagu leeyahay Origi ayaa